Maxaynu ka ognahay in dowladda Itoobiya ay dib u soo celisay diblomaasiyiin iyo shaqaale dowladeed oo reer Somaliland ah saddexdii cisho ee u dambeeyay, kuwaas oo markaasi ku safrayay baasaboorada dowladda Somaliland. Haddaba ilawareedyo xogogaal ah oo arrintan u dhuundaloola ayaa sheegaya in Sabtidii safaaradda Somaliland ee ku taala magaalada Addis Ababa ay ka sii daysay madaarka xubno ka tegay Somaliland oo sitay baasaboorada diblomaasiga ah. Sidoo kale shalayto waxaa madaarka Addis Ababa lagu xidhay xubno kale oo sitay baasaboorada diblomaasiga ah iyo ka shaqaalaha dowladda, waxaana ay dowladda Itoobiya maanta dib ugu soo celisay magaalada Hargeysa. Somaliland iyo Itoobiya weli kamay hadal dhacdooyinkan, hase yeeshee waxa ay ku soo beegmaysaa xilli xasaasi ah oo dagaal khasaare badan sababay uu ka dhacay kilalka shanaad ee Soomaalida Itoobiya, halkaas oo ay ku dhinteen ciidamo fara badan oo ka tirsan liyu booliiska kilalka shanaad iyo dad shicib ah. Wafdi wasiirre ah oo ka tirsan Somaliland ayaa dhacdadaasi kadib tegay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana ay kulamo la kulmeen saraakiisha amniga iyo madaxda kilalka shanaad. Ilaa hadda ma cadda labada dhinac waxa ay ka wada hadleen iyo isfaham in ay ka gaadheen kulankoodii. Dagaalka dacwali kadib, Somaliland waxa ay maxaabiis ciidamada liyu booliiska ah u gudbisay safaaradda Itoobiya ee Hargeysa, halka weli maxaabiis badan oo ciidamadaas ka mid ah ay ku jiraan gacanta dadkii shicibka ahaa ee deegaankaasi ku dagaalamayay. Wasiirka amniga Somaliland ayaa kilalka shanaad ku eedeeyay khasaaraha dagaalkaasi ay ciidamada liyu booliisku ka geysteen, taasoo xafiiska amniga iyo nabadgelyada ee kilalka shanaad si adag uga jawaabay eedeyntaasi oo uu ku tilmaamay Somaliland in ay samaysay gogol dhaaf siyaasadeed. Wararka laga helayo tallaabadan ay Itoobiya ku soo celisay diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha reer baasaboorada Somaliland ayaa lagu sheegay in ay ku sababaysay inaanay dalkeeda soo gelayn diblomaasiyiin aan wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya aan ka haysan oggolaansho rasmi ah.